munaasabadan oo ay soo agaasimeen ururka haweenka magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud oo ka soo qayb galay madaxweynaha maamulka gobolada dhexe oo kol hore lagu dhisay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud ayaa ujeedkeedu ahayd soo dhaweynta maamulka gobolada dhexe ee Soomaaliya. munaasabada ayaa waxa khudbado kala duwan ka soo jeediyay inta badan haweenkii ka soo qayb galay iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolada dhexe iyo waxgarad kamid ah bulshadii ka soo qayb gashay munaasabada. ugu horreyn waa kuwan qaar kamid ah haweenkii soo agaasimay munaasabada oo dareenkooda sidaan u cabiray ku saabsan yahay gobolada dhexe inay tahay maanta waa maalin qamiis bisha 9 ay tahay inay soo dhaweynayaan hadafkooda muujinayaan kuna hadlayaan inay wax qabadkooda ay soo dhigtaan banaanka hadafkooda ay lahaayeen waxa weeye inay la qabteen madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenada maamulada dhisteen koow ka yihiin laba ka yihiin saddex ka yihiin hadafkoodana ay ku leeyihiin door muhiim ah ku leeyihiin gobolada dhexe. We would like to welcome our Excellency President Sheikh Mohammed Shakir. It is a pleasure and dignity for us to take part with this allocation. As we are the young academic ones, we are very happy to have a good administration, governor, and the honest president who can bring back peace, stability, and prosperity to our region central state. It is your excellent President Sheikh Mohammed Shakir. I would like to conclude my speech. ونحن معاشر النساء نرحب مرة ثانية على رئيس أقاليم الوسطى الشيخ محمد شاكر ابن علي ابن حسن ونقول له يا شيخنا ويا رئيسنا الصومالي نحن مقتنعات وراضيات على أن يكون لنا رئيس سني ولسنا راضيات ونرجو من الله أن يكون رئيسنا إماما عادلا فائقا عن نذرات دافعا لدين الله تعالى. gunaanadkii munaasabada waxaa khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa ka soo jeediyay Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo madaxweyne ka ah maamulka gobolada dhexe ee Soomaaliya fadhigiisuna yahay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud. ugu hambalyeynayna dadaalkiina sharafta badan leh runtii waxaad gasheen lama gudi karo laakiin amaal ninkii galaaba in loo gudaa garweeye maalin bay dhici doontaa la garwaaqsado guntiga aad dhuuqsateen oo aad u dhuuqsateen amniga aad u dhuuqsateen xoreynta waddanka aad u dhuuqsateen ummadda badbaadadeeda maalin baa la xusi doonaa oo taariikhda laga sheekayn doonaa maantana waa u joognaa waxaa jira wax tasliyo ah sabarsiin qofku markii dhib uu dul qaadanayo waxaa lagu sabarsiiyaa dadkii ka horreeyay dhibka soo maray maalin khaas ahaan u samayn doonaa ma ahan markii u horeysay oo sidaan oo kale munaasabad lagu soo dhaweynaya maamulka gobolada dhexe oo aan wali aqoonsi ka helin dawladda federaalka Soomaaliya ee lagu qabto magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud. Shucayb Maxamed Cali, telefishinka caalamiga Somali Cable, magaalada Dhuusamareeb.